laba cisho ka hor ayay ahayd markii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu qayb ka mid ah golihiisa wasiirada ku sameeyay isku shaandhayntiisii ugu horeysay ayaa waxaa si adag uga hadlay gudoomiyaha xisbiga u ciiday gobolka Togdheer Mudane Fuaad Fure gudoomiyaha ayaa sidoo kale ku tilmaamay in ayaan darro weyn tahay in dad reer Soomaaliland loogu garnoqo meel ay ka taliso dawlad kale waa sida uu hadalka u dhigay waxaana uu ku dhaliilay inay ka gaabiyeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin waana kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya wacyiga maanta taagan waa xukuumadii laga doonayay inay wax badan ka qabato wadanka isku shaandhayntii ugu weyneed ay sameysay maanta shalay sameysay waxyaalaha ayaan darrada ah wasiirkii maaliyadda oo ahaa halka kaliya ee la eegayay maanta hadii uu Muuse yiri inoo handaraab Saad Cali Sharow waxaan leenahay alxamdulillah kugu mahadnaqayna Muuse dad reerkiina tiri inoo soo handaraab yaani cidi ogaanin waxaan leenahay barakallahu laka ducadii baan furana caruuska tiraayadu qabtay wuxuu ka hadlayay waxaan handaraabtay albaabkeegi gurigeyga handaraabtay gurigan malihin annaga kula gurigan malihin gurigan waa gurigii ummadda looga talinayay ummaddaana ku geysatay ummaddaana aayaheed hadii kugu garan weydo ka soo saaraysa wasiirka arrimaha dibadda يا سعد على الشري Soomaaliland war oday xukuumadda hore waxa ay jirtay guddi markii waxa sameynaysa soo saari jirtay waa ciido tolo meel la talin odayga waxa uu ayaan daran oo maanta cid waliba eegaysa Soomaaliland in dagaalkii beelaha halkan ka dhacay gobolka Sool in jigjiga loo raro maanta oo Puntland iyo Ethiopia jigjiga maanta lagu heshiisiinayo Muuse ma ogid baan malanaya ya handaraabkii hurdaad ku darsataan kulan hadaan ku hadlay afka cuday maamulka gobolka Togdheer handaraabkii hurdaad ku darsata soo jeeso wadanka dhibaatada wadanka taala dib u eeg bulshadu waxay ka doonaysaa cadaalad sinaan bay ka doonaysaa waxyaalaha kale boosiisha barnaamijka Muuse maanta ku tilmaamaya kaana cidkeen barasaabka xogeenkii gobolka Togdheer uu banaan yahay cidkeen cidad keenaysa ha ahaato cidide lagu mahadnaqay taa ha ahaato kale cid kale ma keenaysidii ma ogid bal malayn ku xasuusinaya oo boos ka maqan kale meelaha in lagu tusaal u baahan tahay kulmiye ina kaahina waxa leeyahay ina kaahina waad ku fashilantay arrimaha gudaha waad ku fashilantay maanta lagu ma heshiisiyeen dadkii aad arrimaha gudaha aad ogaan lahayd lagu ma heshiisiyeen jigjiga sanaag kama dhacdeen madaxtooyadii Puntland ee gurigii baarlamaanka laga madhiseen ma ogid baan u maleynayaa adigana kulay waxaan u maleynayaa wasiir inaad halka u fiirsato ama sacad shabadi la wadanku wuxuu baahan yahay horumar xukuumadda daahir yaalan leeyma jirin baran cid soo gali jirin siiyaan cid soo gali jirin cigaal ban cid soo gali jirin Cabdiraxmaan ban cid soo gali jirin mujaahidiin baa nahay baa leedihiin laba mujaahid baa sheeganaysa maanta wata madaxtooyada ku socoto waxaan la wadanku wuxuu baahan yahay in la isugu yimaado xukuumadan kulmiye ma sii wada karayso waanu ku baaqaynaa waanu ku taageersanahay gudoomiyaha xisbiga cadaaladda ee daryeelka injineer Faysal Cali Waraabe shirka uu ku baaqay waanu ku garab taaganahay Khadir Cabdirasaaq Salebaan Khadir Hanad shabakada wararka Yadwanaag News magaalada Burco